fadhiga u qabsoomi doona golaha amniga maanta ayaa noqon doona kii koowaad ee noociisa loo qabto arrinta la xidhiidha virus corona. wararka ila diblomaasiyadeed ka soo baxaya ayaa sheegaya inaanay wali cadayn waxa uu ku dambeyn doono shirkani, iyagoo ka saadaalinaya inay hadhayn doonto wadahadalladan dhex mari doona xubnaha golaha isugu iman doona ku kala tagsanaan fikir uu mid waliba sida gaarka ah hore u qabay arrintan la xidhiidha caabuqa virus corona, iyo in xubnaheedu ay noqon doonaan kuwo si dhab ah u raba in ay ugu midoobaan iskana kaashadaan la dagaalanka cudurka virus corona. sidii ka dhacday khamiistii hore ururka jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa go'aankii ka soo baxay ee ay u dhammaayeen 193 xubnood ee ka tirsan, inkastoo ay ka jirtay dhinaca dowladda Ruushka carqalad. dhinaca kalena dalka China ayaa warbixin maalmeed ka soo baxda ku sheegay in dalkiisu uu noqday mid ay ka dhamaatay amaba ka istaagtay xaaladihii dhimasho ee uu sababi jiray xanuunka virus corona laga soo bilaabo tan iyo xilligii uu ka dilaacay caabuqa virus corona wadanka China. waa markii ugu horeysay ee warbixin noocan ahi ay ka soo baxdo dhinacooda. arrintan ayaa ah mid ku soo beegantay xilli ay la daaladhacayaan wadamada dalalka Yurub, Mareykan iyo Carabtuba tirada kor u sii kacaysa kiisaska laga helayo dadka cudurka virus corona uu ku dhacay. maanta oo kaliya ayaa la sheegayaa inay kor u dhaaftay 10,000 oo kiis inta laga helay caabuqa virus corona qaaradda Afrika oo kaliya.